السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كيو صحافة مدح بنانيد ويان صاولة سعطانبا وحنو جوغنا قلبتا قريقي بقر إرمدو عول حسن وحو كهادليا شركي جرايد وحو كسليسان يهي بقر بورمدو arrimihii ayaantii dhaweyduu ka hadlay isagoo gaadhay waddanka la yidhaahdo muxuu ahaa waddan anagu uma naqaanee Puntland arrimihii uu ka hadlay arrimo aad u qalafsan bay ahaayeen oo xasaasiya waxa weeyaan arrimaha waanu cambaaraynaynaa cambaar baanu dusha ugaga tuuraynaa halkana boqorkii oo idiin qaadaa dhigaya waa kan waxa kale uu boqorku maanta ka hadlayaa inantii yarada Naciimo yar waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi inantaa yariista inuu u sii daayo xorriyadeeda. Assalaamu calaykum boqor. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي ومد الصومال لأن الدل يدمد ميلك استيجوكتو وحنكو السلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال شعادي ويديسي ربغ العلم دوه وحان دلي عينيا وعن دلي عينيا وأن كسو هرشيدا والصومال لأنه كسو هرشيدا بقر صومال لأنا بقر بورمدو laba dal baynu Soomaaliya iyo Somaliland ay kala tahay wadalkan waa loo soo dagaalamay waa loo soo dhibaatooday waxaynu soo awgeeyay soo maray dawlad madax bannaan itiraaf waa ka ilaahay dawlad madax bannaan oo intaas soo jeer qabsatay golayaasheedii madaxweyne intaas madaxweyne isbedeleen baynu ahayn waxaan marnaba ogolayn asaga iyo mid lamid ah ilaa madaxweynaha kii taageeraya inuu Soomaali weyn ugu daro ama ka hadlo كما أكرين ملايين وحنو شيء يا شعب الصومال إن إسلام ترعية كشراب طلاب شرعية كقعدان بقول بورمدو وأنا ذلك الدب سوكل حطوا صوتنا كعم بيرا وقتو تحصل كعد صنيع سومالان تربيوناي إنه الصومالي من خانو وإن كعم بيرا وقتها بقول بورمدو sababtoo ah qarankeenii dhammaa ee dhisnaa ayuu waxaan jirin ka soo qaaday waanu cambaaraynaynaa marnaba kama ogolaan doono asagii wixii la macaba ilaa madaxweynaha hadduu tirigarayo kursiga dhagax lagaga rogaya inuu Soomaali weyn raacsiiyo dalkan intaasoo boqol oo ogtiin ayaa dhiigooda ku daatay وأنا إله ولينكم أن هنيه صلوالات حنشرت ذلك يجي هل جبان الصومال قارئ كوير ميكون صاه الله يوبسبان كله سويته وتريتي والله يوبسبه ويا حمر وحويا دل مدح برنامج بيننا قف الصومال لاند أو أما دخل أما السياسي هو كهالله الصومالوي كهالله أو كسوق عدل كوي حنشرنا كعم بلا لو قبنايا شعب كويري يوي في الصومال لاند وإنك عم بلا كقبتها حكومتنا قبتها وحنو الشيء ليش دي حكومة ما جرتو بقول بور مدوحي مدحوينها يصدري مدحوينها وحلو داريين والصومال لأن عدالة السناك وحكومة دولة من الله أنا أودين صومالوين أنا مرة بأودين وحمانتا موقتها إنك تي بينودي وصومال لأن وأدراني مدحوينيه لما وعد مرة بأدراني صومالوين وهالسكي قبتها يمكي قورتها وارسكي قبطة مدحوينة ما هي هداي تأثير في الموضوع مدحوينة إنه نقول مايو شعب كوين الكعان وإنه يتصان إنه يودر لمدو أي ديك يدو حقيقة جدو تستحالوا عن كهالله نعيمة ير وأبو آلم وإنير ما هو السياسي ما هو ضد الخميت الشعب كله دوش الصعونية المها يرى إنتو هالكاتك كسو هالله صور نقضي إن دوري تمسروا حالي قال له ديبو وخلط صدق صراحة حالي قال له ديبو وخلط وعن الحكومات كقب صريع عدي وصيصنا وعن كقب صريع إنا كاهن محمد كاهن وستير كاهن ما قدده إنه استرلاب الشرعي كقاضي الماء يقول كده يسيده والمير وماطل والضمر سياسي معها تقفل ما يجيسوها الله إلا وحرة تاس معها لكن هذا وحرة يسوه كان كي أمدي متري لي مدحواني عد ما كسيان طلاب الشرعي كقاضي ما لقى دوري لقى فرديا وستير كاهن ما قدده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu marlabaad ku weydiin annagoo wali saxaafadii ku dhex jirna ninkan la yiraahdo Mustafa Martini
maxaad ka odhanaysaa ayaantii dhaweyd uu london yimid ee uu sitay calankii soomaali weyn kusoo dhawo boqor waxaan ka odhanaya dadkii raacsanaa baan hoona waxaan moodayay in dee uu yahay nin somalilandara oo dalka iyo dadka u dalaynaya oo tan maanta dhibaatada naga haystee laysku wada laynaya kala saari karla ilmo yaro dhaawacmay xagtinimadii soo gaadhay xagtini somaliland ma ogolan dalka qof uu xagtini soo gaadho qof bacdaantiisa ilaalisana oo duniya oo nabadgelyadooda dowladda ka mas-uul ilaaliso shacabka walaalaha iskumaadaya iyo kala saari kar weyda anugu mustaqbalkii wax muusaa nin wadaniya weeyaan oo maanta dalkii dadka u daynaya waxaa soo noqday soomaali weyna dalka inaanu soo gelin baan anigu aan ku talnaa oo tallaabo sharciga laga qaado isagii buurmudooba madaxweynuhuna hadduu sidaa kula socdo shacabku kaco iska rogo dowlad ma jirtee wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkaa waxaanu kusoo gabagabaynay war saxaafadeedkayagii galabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu